noloshaada haddii problem uu ku haysto ama dhibaato ay jirto, xalinteedana aad ku wareysan tahay ama asalka meesha ay dhibaatada ka imaaday, si aad markaas u heshid xal waafi ah. sababtoo ah problemka waxa sababay haddaadan ogeyn xal waafi ah uma heli kartid. marka waxaan rabaa inaan kula wadaago tikniigan lagu ogaan karo dhibaatada meesha ay ka imaaday asalkeeda hore. tikniigan ama habkan waxay dhahaan the 5 whys, shanta maxaa sababay. adigoo markaas ku soo celcelinaya maxaa sababay 5 jeer si aad u hesho asalka dhibaatada meesha ka imaaday, aadna si qoto dheer u gashid problemka markaas jiro. marka hore waxaad xaqiijinaysaa dhibaatada markaas ay jirto, kadib waxaad isweydiinaysaa ama tiimkaaga aad weydiinaysaa maxaa sababay, intuu ka imaaday problemka. marka ku xigta waxaad ogaanaysaa waxaa sababay, haddana isla su-aashii aad soo celinaysaa, waxaad leedahay maxaa sababay. waxaad sii wadaysaa ilaa 5 jeer ayaa su-aashii soo celinaysaa. kadib waxay u badan tahay inaad soo heshid problemka iyo meesha dhabta ay dhibaatada kasoo bilaamatay. waxaadna sii wadaysaa ilaa aad ka aaminto inaad heshay asalka dhibaatadaas. waa ay ka badan kartaa 5 ama waa ay ka yaraan kartaa ilaa aad ka aaminto halkii ama dhibaatada asalka meesha ay ka imaaday inaad heshay. tusaale fudud haddaan u isticmaalno, mathalan aad soo goysay red lightka ama nalka gaduudan wadada traafikada. marka waa inaad isweydiisaa sabab. markaad sabab isweydiisid waxaad helaysaa inaad shaqada ka daahnaa soo maaha. sabab, waxaan soo kacay waqti dambe. maxaan u soo kacay waqti dambe? sabab. alarmiga ii shaqayn waayey. muxuu kugu shaqayn waayey? sabab. bateriga iga dhacay? sabab. waa ilaaway markaan intaanan seexan ka hor inaan jeeggareeyo. marka waxaa soo ogaatay si diibli ah asalka dhibaatada meesha uu ka imaaday, meesha ayaadna kasoo xalinaysaa. intaas wixii ka dambeeyo waxaad ku qasbanaanaysaa habeen walba mobilkaaga inaad baterigiisa fiirisid si aadan shaqada ooga daahin. tikniigan waa tikniig effective ah aad ku ogaan karto dhibaatada asalka meesha ay ka imaaday, adigoo u isticmaali kara noloshaada shakhsiyan ama noloshaada dhanka shaqada iyo tiim ahaan aad u isticmaali kartid.